maantay waxaana ka cunay taliya laga cunay dartood bay u faysan yihiin maantay waxaana ka cunay taliyaha qaybta gobolka Gardafuul ahna shiraf cabdigoon cadde taliyaha qaybta xuquuqdoodii uu cunay saad haddii ahayd mushaaraad haddii ahayd wax kasta lahaayeen ma hayaan ciidankii waxaana looga daba jawaab keenay haddana inuu yiraahdo ciidanku waa inay bedelayaa waxaana ku bedelayaa dad shacab xaqna uma lahan ciidanku waa ciidan soo jira waa ciidan Puntland waa ciidan qaran inay shaqeeyaan awalna way shaqeyn jireen haddana way shaqeynayaan shiraac cabdikoor buu shaqeynaya iyadoo sidaasana waxa way ciidankan wixii qaramaysnaayeen shiraac cabdikoor 8 sano qaramaysnaayeen oo waxa way ciidan qaramaysan weey qarameyntoodii waxa way waxaba ka daran xuquuqdii ay lahaayeen iyo saldhigga saadkii u soo baxay oo wuxuu u noqday macnihii qof ka hor taagan oo macnihii cunaya oo la soo hor taagan yahay afkiisa ka garanaya marka dawladda Puntland annagu wax ka codsanaynaa ama madaxda Puntland waxa weeye wax arintan ay u jeedo ciidanka degmada Baargal uu hayo inay wax ka tiraado oo waxa weeye anagu askar dawladeed baan nahay sidii saban askarigu waxa weeye meel uu ka hadlo iyo meel uu maalintaas macnihii uu taagan yahay oo macnihii wix dhibay inuu ka hadlo horta waa wax daliilade oo wixii afkiisa macnihii uu qabtay inuu iska hadlo laakiin maalinta wix dhibay inuu sheego macnihii xaqiiqo waxaan anagu cambaareynaa taliyaha qaybta waan cambaareynaa tan waa degmo oo askar baa joog 4 saac taagan oo shaqeynaya marka saldhigga Baargal wax badan buu shaqeynayay marka inay 15 sano iyo ka badan buu shaqeynayay marka dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa inay macnihii waxyaalaha farxumada badan oo meesha ka dhacay gobolka Gardafuul degmada Baargal ka dhacay inay aragto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka soo gudbinaynaa maanta oo taariikhdu tahay 22 bishii 3 2019 waxaanu nahay degmada ciidankii degmada Baargal anoo ku hadlaya magaca degmada Baargal hooyo Soomaaliyeedna ah ilaa iyo xilliga Cabdilaahi Yuusuf soo shaqaynaynay degmadana ka soo shaqaynaynay ciidan qaramaysan oo Puntland ka qaramaysan oo qaatay tababarkii ku filan tababarkii loogu talagalay qaatay haday tahay tababarkii xorgoble laga soo galay iyo haday tahay tababarkii carma laga soo galay intaba qaadanay oo u shaqaynayna dalka iyo dadka u shaqaynayna ayaa waxa weeye oo waxana la shaqayn jiray taliyayaasha hore runtii ceeb ma ay lahayn waxa weeye waxaanu anagu nahay maanta degmada Baargal waxa taliye looga soo dhigay gobolka Gardafuul nin la yiraahdo Shiraac Cabdigoon cadde ninkaas oo nagu haya faragelin caqabad iyo burcadnimo waxaanu codsanaynaa oo dawladda Puntland ka codsanaynaa ninkaas aanu ka nahay cabaatin waa ka cabanaynaa ninka cabaatin kale waxa soo gudbinaynaa dawladda Puntland ilaa iyo taliyad qayb saldhig buu nagu haystaa ilaa iyo federaal baanu ka qarameysanahay ilaa iyo Puntland baan ka qarameysanahay dawladda Puntland dawladda federaalka dhammaan waxaanu waxa weeye cabashada u muujinaynaa ninkaas Shiraac Cabdigoon cadde la yiraahdo oo la yiri taliyaha qaybta gobolka Gardafuul weeye caqabad buu nagu yahay faragelin buu nagu hayaa annaga taliyana xukuma taliyaha saldhigga Muumin Abshir Xasan baana xukuma isagaanuna maaragtay ku ka dambaynaa isagaanuna hoos nimaadnaa isaguna waxa weeye isaga maaragtay waxa weeye hawshayada ku shaqale annaga inuu kor nagaga yimaado maca degmadayadii maca taliyahayagii maca kulligayo oo na yiraahdo waxa weeye ciidankiina waa bedelaya oo dad kale aan ku soo bedelanaya oo aan ka keeno gobolka Gardafuul caluule iyo bareeda annaga waajib nooguma laha shalayna waanu la hadalay hadalla xun buu nagula hadlay annagoo hooyooyin Soomaaliyeed ayuu wuxuu yiri hadalba ku rooyahay naaga hadalba ku rooyahay hawlgaba naaga hawlgaba baa meesha jooga waxa weeye taana annaga nagama mudna namana oran karo waanu la hadallo waxaanu ku niri budgetka yaga baanu ka rabnaa waxaanu ka rabnaa hadalba ku rooyahay waxaan xuquuqdayadii baanu ka rabnaa wuxuu nagu cadeeyay oo hortayada ka cadeeyay budgetka yagii oo 2 bilood oo min 1500 inuu isagu cunay oo hortayada ka cadeeyay saasaanuna waxa weeye uga cabanaynaa faragelin xun buuna nagu hayaa dawladda Puntland ilaa iyo dawladda federaalka waxaan codsanaynaa hoggaanka ciidanka Puntland hoggaan ilaa iyo dawladda federaalka waxaan codsanaynaa ninka faragelin buu nagu hayaa in meelna la ka soo saaro wasalaam